Wax ka baro sida ay maskaxdaadu u shaqeyso. Qaybta maskaxda ee miyir daboolan siday u maamushaa waxa aan samaynayno. Fariimaha miyir qabka iyo duufanaanta maskaxda waxay nagu hagaan inaan aamino in fikradaheena galaangal lagu yeelan karo annagoo aan ogeyn balse intay gaarsiisan tahay awoodda qaybta hurdada ee maskaxda. Mararka qaar haddii aad isweydiiso sababta aan arrimo gaar ah u samaysay, waxaad ogaanaysaa in aadanba ka war haynin in waxaasi ay dhaceen iyo sida go'aanku uu ku yimid. Haddaba ilaa heer intee le'eg ayay shaqaysaa maskaxdaada qaybta soo jeeda ee miyir qabka. Maxaad gaari cusub u iibsatay? Sidee ku jeclaatay xaaskaaga? Haddii aad bilowdo inaad isweydiiso su'aalo noocaas ah, waxaad ogaanaysaa in qaybta hurdada ee maskaxdaada ay gaartay go'aano aan dhexdhexaad ahayn. Ha ahaadaan go'aano muhiim ah ama kuwo iska caadi ahba, waxaad ugu dambeyn ogaanaysaa inaanay warbah u haynin sida arrimahaasi ay ku dhaceen. Waxaa suuragal ah inaan ka walwalno heerka ay gaarsiisan tahay aqoonta aan u leenahay maskaxdeena. Waxaa ku dhex jira ee iska shaqaynaya anagoo aan war u haynin. Nasiib wanaag, sayniska maskaxda ayaa bidhaamiyay waxyaabaha muhiimka ah ee ku jira. Mid ka mid ah baaritaanadii ugu muhiimsanaa waxaa soo helay ninkii ku takhasusay cilmu nafsiga ee la yiraahdo Benjamin Libet sanadii 1980. Wuxuu sameeyay baaritaan khiyaano ah oo fudud kaas oo dood badan abuuray. Tan iyo wixii sanadkaasi ka dambeeyay, dadkii ka qayb galay baaritaan waxaa la weydiiyay inay si xasilan u hor fadhiistaan saacad. Waxaa saacadaasi lagu dhejiyay nalal yaryar oo qaybta hore ka ifayay. Kadibna waxaa la muujiyay in dhaqdhaqaaqa maskaxda uu ahaa mid aad u foojigan markii fartooda ay ku qabanayeen iftiinka. Sidaasi ayayna u sii miyir qabeen. Balse maadaama saynisku uu hormaray, waxaa dib u eegis lagu sameeyay oo lasii hormariyay qaabkaas baaritaanka ah. Balse waxaan gaarnaa go'aano aynaan si miyir qab ah uga fikirin. Haddaba maxaad qof u jeclaatay? Waxaa dhici karta in qofkaas uu ku dareensiiyay inaad tahay qof awood leh, meel badqab lehna ku sugan. Sidoo kale waa qof si adag kuu tijaabinaya, si wanaagsan kuula dhaqmaya. Si la mid ah, dhammaan arrimaha maskaxda la xiriira ma ahan hal jawaab ah, balse waxay khubaradu ku doodayaan in go'aanka jacaylka uusan wax xiriir ah la lahayn qaybta maskaxda ee miyirka qabta. Waxaa jacaylka iyo dareenka xoogga leh maamula maskaxda hurdada. Saaxiibayaal, waa inaga intaa sheekadeenii nabadgelyo. Mahadsanidin, muuqaalkaana inoo sheer gareeya.